Ladies and gentlemen, welcome mudanayaal iyo marwooyin Minerals Expo. ku soo dhawaataan bandhigga munaasabadda macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland To present the rich minerals and natural resources of our munaasabadani waxay ka turjumaysaa go'aanka iyaga adag ee ah in maalgashadayaasha caalamiga ahi ay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo bandhigto hodantinimada macdanta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. We have clear rules, secure borders, and Somaliland waa dal lagu kalsoonaan karo oo xasiloon kuna habboon maalgashiyo waaweyn iyo iskaashiyo. waxaanu leenahay xeerar cadcad, xuduudo ammaan ah iyo dawlad mas'uul ah oo ka dhigaysa ganacsiga Somaliland mid sahlan oo ammaan ah. dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu alle ku manaystay macdano badan oo ay ku jiraan kuwa dhifa oo aad looga doonayo suuqyada caalamka. goobo badan oo Somaliland ka mid ah ayaa hore loogu aqoonsaday inay ku habboon yihiin qodista macdanta kuwaasi oo bixinaya fursado waaweyn oo u bannaan maalgashadayaasha oo daacada oo doonaya in ay maalgashi ku sameeyaan dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. horumarku waxa uu taageerayaa yoolalka qaran ee dhinacyada abuurista shaqooyinka, ballaarinta warshadaha, hagaajinta helitaanka tamarta iyo dhismo dhaqaale oo xooggan. Somaliland waa dal ka mid ah meelaha ugu nabdoon uguna xasiloon guud ahaanba gobolka. Somaliland xasiloonideedaasi waxa ay siinaysaa maalgashadayaasha kalsooni dhab ah oo ay ku doortaan inay Somaliland maalgashadaan. gabagabadii waxaanu mahadcelinayaa dhammaanba ergada iyo maalgashadayaasha maanta nala jooga. Somaliland way u furan tahay ganacsiga, waxaanan idinku soo dhaweynayaa si diiran iyo gacmo furan wada shaqayn aad u wanaagsan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa khudbadaasi waxa uu ka jeediyay kulanka macdanta ee Jamhuuriyadda Somaliland.